wafdi ballaaran oo ka socday xukuumadda Somaliland iyo xisbiga kulmiye ayaa maanta kormeer kala duwan ku maray goobaha uu sida gaarka ah u taaftay xanuunkan shuban biyoodku iyo goobaha caafimaadka ee lagu tacaalayo xaaladooda waxaana kamid ah goobaha ay wafdigani booqdeen xabsiga dhexe ee Burco cisbitaalka guud iyo maxadka kalkaaliyayaasha caafimaadka Burco oo xarun u noqday bukaanada xanuunka shuban biyoodka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland Dr. Saad Ali Shire wasiirka maaliyadda Somaliland Marwa Zamzam Cabdi Aadan iyo wasiirka madaxtooyada Somaliland Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa bulshada u iftiimiyay siyaabaha xanuunkani ku fido iyo waxyaabaha uu ka dhasho iyagoo bulshadana ugu baaqay inay nadaafadda ku dadaalaan waxayna wasiirka maaliyaddu si gaar ah uga hadashay dhismihii xabsiga Burco oo hakad galay cudurkan waxa laga qaadaa waxaanu ku fidaa nadaafad xumo halkaas oo ka bilowda runtii sidii loo maareyn lahaa ee loo soo afjari lahaa ee aynu uga takhalusi lahayn waxa runtii ay ku xidhan tahay qofka iyo qoyska iyo ganacsatada marka door weyn waxa ku leh daaweynta arrinkan iyo soo afjaristiisa waa shakhsiga weyn haddii mataqaana nadaafadda lagu dadaalo ta qofka ta guriga ta biyaadda wax badan baa runtii ay arrinkaas ka qabanaya sidoo kale ganacsatada kuwa khudradda iibiya kuwa hilibka iibiya kuwa cuntada iibiya iyaga laftigooda door weyn bay ku leeyihiin haddii meesha wax ku iibinayaan nadaafadeeda ay ka shaqeeyaan iyo wax iibinayaanba iyada laftigooda door weyn buu ka qaadanaya qarankan ka go'ay oo inaga baxay cidna ma qaran karto nafa aan inaga go'ayna waa dembi haddii dhimasho lagu xukumo oo aan ilaahay ku xukumay subxaanahu wa tacaala lacagta markii hore Somaliland baa loo geliyay jeelka lacagtii baa dee sicir barar baa dhacay marka imika lacagtii waxay yiraahdeen ilaa uu doolarku lacagta ay noo noqoto intii ay u soo dhawaato ma qaadanayno laakiin waxaan ku heshiinay imika insha Allah inaanu anagu doolar u raadino Somaliland la hadno sida ugu dhaqsaha badan inuu soo deynaa maadaama uu doolarkii ay ka warwareen in lacagtii iska dhinto wasiirka caafimaadka Somaliland ayaa isaguna aad ugu mahad celiyay xukuumadda uu ka tirsan yahay ee uu hogaamiyo madaxweyne Siilaanyo oo kaalmooyin joogto ah ugu soo deeqay bukaanada xanuunkani soo ritay wuxuuna xukuumadda ka gudoomay dawooyinkii ugu tirada badnaa isagoo gudoomiyaha xisbiga kulmiye ka gudoomay lacag $70,000 waxa kale oo aan halka kaga wareejinaynaa muxuu ahaayay wasaaradda caafimaadka isduwaha caafimaadka gobolka wasiirkiina inala joogo 270 kartoon oo dawo iyo qalab ka kooban oo gaariga dhabarkayga taagan waanu xukuumad ahaan gobolkan u keenay si xaaladdan ay gurmadka uga qayb noqoto ayaanu iyadana ku wareejinaynaa waa bogaadinaynaa xisbiga kulmiye qaaraanka uu ku wareejay wasaaradda caafimaadka lacagtaa waxaa lagu isticmaali doonaa gunooyinka howlwadeennada shaqaynaya iyo habeen iyo maalin gurmanaya iyo shiraalada ayaa loo adeegsanaya 2 bilood barjidkood bay soo gudbiyeen kharashkaas ayaa ka daboolaya bil muxuu ahaayay hawshan lagu xakameeyo waa ku bogaadinaynaa gudoomiyaha iyo xisbiga kulmiye gurmadkii ay wadeen waftiga xukuumadda iyo xisbiga xukuumadda waxaanu ka gudoonay daawo aad u tiro badan oo tayala oo ka badan tahay 270 kartoon waa dawo aad u tiro badan waxa kaloo noo soo socda dawo iyaduna aad u tiro badan xukuumaddu ay dalabtay oo ina dhaqsan ugu iman doonto insha Allah tii la qeyrta caso ilaa 6,000 oo tan baa ina noo soo socota mid badan baa noo taala waxaan ka gudoonay gudoomiyaha xisbiga kulmiye lacag dhan $70,000 oo ay soo ururiyeen taageerayaasha xisbiga kulmiye ee ku nool qaaradaha adduunka lacagtaas sida wasiirka madaxtooyadu sheegay waxaanu ku isticmaali doonaa kharshiyaadka shidaalka iyo gunooyinka hawsha la wado gabagabadiina gudoomiyaha xisbiga kulmiye Mujaahid Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay xaaladdan shuban biyoodka iyo kaalmada ay xisbi ahaan ku deeqeen halkan anagu xisbi ahaan tawrub aanu keenay halkan qaaraan ay soo ururiyeen dadka kulmiye ka mid ah iyo taageerayaasheeda oo 5 qaaradood baka kooban iyo gudahaba ashqaas leh shirkad leh lacag ay soo ururiyeen baan u sida halkan oo lagu taageerayo gurmadka lagu jiro shubiyadka lagu dagaalamaya cusbaalka Burco kuwa kala goboladana saasaan ugu dadaalaynaa arrintan ka hadalkeeda iyo waxa la qabanayo iyo habka loo qabanayo loo daba fariista dhaqaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka walba loo daba joogin haddaan xisbiga nahay qolada mucaaradka ay shacabka anaga
arrin uuna soo faray madaxweynaha qaranka oo odaga xisbigana ha la hubiyo intaan la nacanaa inagu aanu gudana sugino markaa waa dadaalaynaa waa heer qaran tu laisku fiiqiiqa maaha tu wax laga daya maaha tu wax la qariya maaha waa inoo midnimo mustafa cismaan magaalo telefishinka qaranka Somaliland magaalada Burco.